Assalaamu calaykum daawadayaal. Maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago loolan ka soo jireenka ah ee xagga dagaalada ee dalalka Turkiga iyo Giriiga. Wuxuu ka bilaabanayaa loolanka u dhexeeya Turkiga iyo Giriiga sanadkii 1048, waxaana qarxay sanadkaas dagaalo u dhexeeya Seljuuqiyiinta iyo Bistaaniyiinta oo markaa Giriigu qayb ka ahaa boqortooyadii Bistaaniyiinta, iyadoo labada dhinac ay galeen dagaalo badan. sanadkii 1453 Cusmaaniyiintu waxay furteen magaalada Qustandiniya ee hadda loo yaqaan Istanbul oo ahayd caasimadii boqortooyadii Bistaaniyiinta, waxaana hogaaminayay Maxamed al-Faatix, halkaasoo badanaaba dhulkii Anadoliya gacanta u gashay Cusmaaniyiinta bartamihii sanadkii 1500. sidoo kale dagaalkii u dhexeeyay Ruushka iyo Turkiga sanadkii 1768 wuxuu horseeday in Giriigu xulafo la noqdo kuna biiro dowladihii ka soo horjeeday Cusmaaniyiinta oo ay ka mid ahaayeen Ruushka iyo Talyaaniga, iyadoo ujeedadooduna ahayd in ay la soo noqdaan dhulkii Cusmaaniyiintu ka qabsadeen. waxaa kaloo xilliyadaasi jireen kacdoonno, iyadoo kuwii ugu caansanaa ay ka mid ahaayeen kacdoonkii filosoofkii Dionysius ee ka soo horjeeday xukunkii Cusmaaniyiinta, isla markaana ku jiray ololaha xoreynta loogu jiray dhulkii Giriiga. laakiin taasi ma aysan suuro gelin, oo waxaa kaloo ciidankii Cusmaaniyiintu soo weerareen jasiiradda Mani ee Giriiga sanadkii 1803, waxayna weeraradani socdeen muddo dheer ilaa 1815 ilaa ay aakhirkii dagaaladaasi isu bedeleen dagaalo xornimo doon ah oo Giriigu kaga go'aya boqortooyadii Cusmaaniyiinta. waxay dagaaladaasi kadib ay Giriigu ku dhawaaqeen xornimadoodii sanadkii 1822, iyadoo ay halkaasi ka dhalatay dowladdii Giriiga, isla markaana Turkigu ay la noqdeen waddan daris ah, waxaana si rasmi ah loo aqoonsaday dowlad Giriig ah. sidaa darteed dagaaladii u dhexeeyay labada dal waxay galeen wajiyo cusub oo hor leh, waxaana dagaaladaasi ku gacan sareeyay Cusmaaniyiinta, iyada oo gacanta ay ku dhigeen qaybo badan oo ka tirsan dhulkii la isku oran jiray Balqaan ee dhacayay bariga Yurub, waxayna markaasi Giriigu bilaabeen kacdoonno loogu kicinayo dhulkaasi xukunkii Turkiga. waxay taasi sababtay muddadii u dhaxaysay 1854 ilaa 1896 in kacdoonno kale oo hor leh ay ka bilowdaan dhulkii ay maamulayaan boqortooyadii Cusmaaniyiinta. kadibna waxaa xigay kacdoonkii ka dhashay degada Giriid, taasoo sababtay inuu dhaco dagaalkii ugu horreeyay ee foolka foole ee u dhexeeya Turkiga iyo Giriiga. dagaalkaasoo Giriigu lagu jabiyay sanadkii 1908 waxaa talada dalka Turkiga la wareegay ururka qaranka iyo isbahaysiga ee Turkiga, iyadoo masiixiyiintii ku noolaa dalka Turkiga cabsi weyn dareemeen. taasina markii dambe ay dhashay dagaalkii koowaad ee Balkaan sanadkii 1912, wuxuuna dagaalkaasi Giriigu la wareegay jasiiradda Giriid, jasiiradda badda ee Jad, Tiisaley, Hebruus iyo xeebaha Makedoniya. wuxuuna Giriiga dagaaladaasi xulafaysi la samaystay masiixiyiintii Serbiya iyo Bulgaariya, waxaana markaasi bilaabmay dagaalkii koowaad ee adduunka. waqtigaasna waxaa socday abaabulka dhinaca Cusmaaniyiinta oo ay wadeen Faransiiska iyo Ingiriiska, kuwaasoo ka dhaadhicinayay Giriiga inuu dagaalka soo galo sanadkii 1917, iyagoo markaasi Giriiga ku abuuray hamigiisii ahaa inuu dib u soo ceshto magaalooyinka Qustandiniya iyo Izmir. waxayna markii ugu horreysay Giriigu qarniyo kadib soo galeen dhulkii Anadoliya ee u dhowaa magaalada Izmir, sidaasina Giriiga waxa ay ku qabsadeen Izmir taariikhdu markay ahayd 1919. waxaana markaasi Turkiga lagu qasbay inay saxiixaan heshiiskii Safrays ee 1920, kaasoo Giriiga lagu siinayay gobolada bariga Taariis iyo 12,000 oo galbeedka Anadoliya ah. inkastoo Cusmaaniyiinta ay saxiixaan heshiiskan, laakiin ma aysan dhaqan gelin dowladdii Cusmaaniyiinta ee xilligaas, maadaama ay baarlamaanku ka soo horjeesteen. waxayna Cusmaaniyiintu mar kale dagaal ku soo qaadeen Giriiga oo ay rabeen inay kaga xoreeyaan dhulkii Anadoliya, waxaana hogaaminayay Mustafa Kemal Atatürk. waxayna ku guuleysteen sanadkii 1922 in Turkiga dib ula soo wareego dhulkii Anadoliya, waxaana halkaasi kusoo afjarmay dagaaladii labada dal, waxaana markaasi la kala saxiixday xabad joojintii loogu magac daray Mudaniya iyo heshiiskii Lausanne. waxaana heshiiskani kadib halkaasi ka dhalatay dowladdii cusbeyd ee Turkiga, iyadoo loolankii labada dal uu u gudbay weji cusub. waxayna isku dayeen hogaamiyayaasha labada dal in caadi ka dhigaan xiriirkooda, waxayna labada dal kala saxiixdeen heshiisyo badan. wuxuuna ra'iisul wasaaraha dalka Giriiga soo booqday magaalooyinka Ankara iyo Istanbul, waxayna dowladdii Giriiga ka tanaasushay dhammaan dalabyadii ay ku doonaysay lahaanshaha qayb ka mid ah dalka Turkiga. wuxuuna ahaa dalka Turkiga dalkii ugu horreeyay ee gargaar bini'aadanimo u dira dalka Giriiga, kaasoo ay ka dhacday abaar daran intii lagu jiray xilligii Jarmalku dagaaladii ku soo qaaday Giriiga.
sidoo kale dagaalkii qaboobaa ee 1950kii wuxuu horseeday is-afgarad dhex mara labada dal, waxayna sanadkii 1952 labada dal ay ku biireen NATO ayna ka mid noqdeen awoodo midaysan oo ku wada jira xulafadaasi. laakiin arrinta jasiiradda Qubrus weli waxa ay ahayd arrinta kaliya ee halista ku ah xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Giriiga. sidaas awgeed, iyadoo labada dal ay ka duulayaan is-afgarad iyo heshiisyo horey oo nabadda labada dal la dhex dhigay, waxa ay saxiixeen labada dal heshiiskii lagu qabtay Sureed 1960kii, kaasoo ahaa in jasiiradda Qubrus loo aqoonsado waddan madax bannaan. laakiin waxa uu heshiiskani burburay markii uu afgembi ka dhacay jasiiradda Qubrus, ayna afgembiyeen saraakiil doonaysa in ay Giriiga la midoobaan, waxayna garab ka helayeen xukunkii militariga ahaa ee Athens ee waddanka Giriiga waqtigaasi. taasina waxay sababtay in ciidamada Turkiga ay weerar ku qaadaan jasiiradda Qubrus, waxaana laga adkaaday kacdoonkii inqilaabka waday, taasoo sabab burbur ku yimid nidaamka militariga ahaa ee Giriiga. waxayna ciidamada Turkiga qabsadeen 37% waqooyiga Qubrus, waxayna ka eriyeen dadkii Giriiga ahaa ee ku noolay halkaasi, isla markaana ku dhawaaqeen madax bannaanida waqooyiga Qubrus. si kastaba ha ahaatee, qabsashada Turkiga ee waqooyiga Qubrus waxay caqabad ku noqotay xiriirka labada dal ee soo socday muddada dhowr iyo 10 sano ah, waxayna cadaawada labada dal ay galeen mowjado cusub, waxayna hadda labada dal ku muransan yihiin badda ay Chad iyo jasiiradda Qubrus, waxayna kordhinayaan awoodda xagga militariga labada dalba. Turkiga ayaana cadaadis siyaasadeed saaray reer Yurub markii uu ballan qaaday inuu sii dayn doono barakacayaasha Suuriyaanka ah oo gaaraya 3 milyan, rabana inay u tahriibaan Yurub. dhamaashaha heshiiska Lausanne ee Turkiga ee xilligiisu ku egyahay 2023 waa gabagabada dabarkii ku xirnay dowladda Turkiga, waana bog cusub oo u furmay taariikhda Turkiga.